Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha dunida ugu qaalisan meel walbo joogtiin aad baan idin salaamay dhammaan muslimiinta salaan kadib waxaan ka hadlayaa ilmaha yari ee caloosha xanuunaysa daawooyinka u fiican daawooyin badan baa jiro aniga laakiin inta aan tijaabiyey oo ilmahayga aan siistay oo tayadooda aan garanayo ay fiican yihiin aan rabaa inaan walaalaha uga faa'iideeyo insha allah ka faa'iideysta walaaleyga qaaliga ah waa iska yara xanuunsanahay codkeygana fasiix maahan ka raali noqdaa alxamdulilaah daawadana aan kow isticmaalay wiilkeygii hore markaan dhalay infacol calool xanuunka loo isticmaalaa dhibco yar baa la siiyaa 2 dhibcood every feeding kasta ama mar walbo adiga aad siinaysid caanaha ama naaska ka hor aad siinaysaa waxay ka saartaa aariyada ama calool xanuunka laakiin tan waxaan u isticmaalay cunugta hadda igu yar maasha allah aad bay u fiican tahay daawadii hore oo idiin soo tusaay wax way u tari weysay laakiin tan baa igu fiicneed koleza lahaa kolezada aad bay u fiican tahay caloosha way nadiifisaa daacashada iyo waxaasna way ilmaha way u fududeynaysaa inay si dhaqsiya u daacsadaan calool xanuunkana waxaa waaye daaway u tahay baashaan aariyadaas iyo waxaas gaaskas gudaha ku jiray nadiifisaa waxaan la siiyaa 2 dhibcood ama 3 dhibcood way ku qoran tahay marka waxaad siinaysaa ayadana caanaha ka hor ama naaska ka hor mar walbo adiga wax siinaysid mostly caanaha ka hor la siiyaa ilmaha baashan aad bay u fiican tahay cunugana wuu kaaga seexanayaa wuu hurdayaa waxaa kaloo jirto mid kale oo aan ugu dari jiray iyadana picturekeed waa arki doontiin waa midaan hadda yalowga ah iyadana waxaa waaye niyobectina lahaa iyadana aad bay u fiican tahay goojooyin waaye tan laakiin waxaa la siiyaa 6 dhibcood maalin kasto 6 dhibcood bisa siinaysaa ayada iyo kolezada iskugu dari jiray labadood markaas iyo tan maalin kasta waxaa ka siin jiray 6 dhibcood kaasna xili walbo marmar waa iloobi jiray saasay tahayna aad baan ugu dareemay isbedel weyn way fiican tahay labada iskugu daraa ilmaha qaarna midii ugu horeysaaba u fiican hadba ilmaha way kala duwan yihiin laakiin saddexdan daawo aad bay tahay u leeyihiin u fiican yihiin waxaa laga yaabaa meesha joogtid inaan laga helin laakiin waxaa waaye badanaa waa la helaa waxaad isku daydin inaad raadisaan si aad ugu faa'iideysataan walaalaha meel walbo joogtiin aniga hadda kama hadlayo waxtarkoodii kulli waxaa waaye aariyadaas unbay bixinayaan oo caloosha gaaska iyo wixii ilmahay ka bixinayaan si ay u dacsadaan oo calool xanuunkiina uga hortagayaan intaas unbay qabtaan laakiin way kala duwan yihiin kolezadii hadda ayadoo waxaa jirta noocan binkiga ah noocaas yelowga haddii oranjiga daawaysid noocan binkigana wuu fiican yahay ma xumo marka waxaan leeyahay walaalaha laga faa'iideysta insha allah cunugii calool xanuun qaba daawadan haddaa siisa calool xanuun way istaageen ilaahay daawaha ugu daro hooyooyinka waxaa waaye ilmaha xilliga calool xanuunka ay qabaan waxay ku garan karaan lugahay soo laabaan ama waxaa waaye lugahay isku xoqxoqayaan calooshii xanuunaysa cunuga oohin ma dhaafayo kaama seexanayo wuu dheregsan yahay baahi ma hayso weli wuu ooynaya calaamadaha lagu garto waaye ka faa'iideysta walaalaha insha allah daawooyinkan waxaa ugu talagalay gabdhihii isoo weydiiyey daawada calool xanuunka midbaa ugu fiican marka ma garanayo kole meelaha joogtiin in laga helo in kale laakiin haddii la raadiyo waa la helaa anigoo waa daawo un waxaan leeyahay walaalaha ka faa'iideysta intii heli karto oonan aqoonin haraadsadaan ilmihiina waxaa waaye hurdo fiican oo idinka seexanayaan calooshayagana u fiicnaane labadiina waa kala nasanaysiin cunugii iyo waalidkiiba ileen qof walba waxaa cunugan sidii u oynayo u tahay waxaa waaye wuu daalay hooyadiina sidoo kale ay ku dul daalay ama waalidkii kale aabihii ku noqdaba walaal insha allah way idin saacideynayaan sometimes Soomaaliga iska qaldan maraali noqdo walaalaha waad ka faa'iidi doontiin insha allah gabdhii soo weydiiyeen ama walaalihii soo weydiiyeen waxaa leeyahay ka faa'iideysta inta noocay kale leeyihiin iyo sawirada idinkaga soo qaado waa idin soo dhaweeyay waxaa kaloo raba inaa idinkaga faa'iideey baashan biogelia taasi waxaa waaye calool xanuun ma aha probiotic waaye waxay ka saacideysaa ka hortag si uu cunug calool xanuun u qaadinba ay ugu hortageen waxaana la siiyaa ilmaha 6 months markay soo gaaraan dhibic caanaha looga daraa markasta caanaha siinaysa dhibic baa looga daraa caloosha u nadiifisaa iyadana taas laakiin kuwii kale laakiin ay idin soo tusaa dhan calool xanuunka ay daawo u yihiin laakiin kan waxaa waaye kasii hortag waaye waxay ku fiican tahay markastana feeding kasta waa loogu daraa kii caloosha xanuunaysan waxaa waaye caloosha waxay kaga saaciday in oo xanuunka uu ka baaba'o kii aan xanuunin inuu ka hortag bay ugu tahay insha allah walaalaha ka faa'iideysta anaa idinku soo kordhiyay midaan aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum.